السلام عليكم دمانتين بابيجك إيلان أصحابتي كوتشرتا أصحابتي ذا يعني أنا أصحابتي ذا دمان إسلا وضع أصحابتي أد بندين سلامنا سيدا دودن تهيم با إيلان صالحي مغانا دي هرقيسة أيا وريقي سيدا أيا وركاقي سيدا شعب كيو كوتشعل دad كيو كوتشعل قولي ناكت المحاق نيرو كودتشي meeshaan maraba lagu leeyahay meeday mataantaadii miyaanay soo socon waxaan ku idhaahdaa kolba way imanaysaa inkastoo laba jeer aad timid isla 2016kii aan Ethiopia ku maqnaa inkastoo aanan Jaanis wala aan ku waayay aan diweyday waxaan doonayaa iglanayo dadka qaarkood waxay ku dhaadaan horta intaad iigal asxaabta fariinta iiga sidid maxay tureerkiisa reer Soomaaliland iyo taageerayaasha adduunka oo dhan naga yaqaan dadka adduunka oo dhan qansalaan kale iyo laab sagal special saaxiibadeeda inta badan fariimaha ii soo faray ii soo diray reer Hargeysa waxa la kaliya la waan jeclahay doorashadana waan imanaya sagale maxaa ku markii ayaan dhawaa ii sheegay sheeka aad u qosle maxay إغلان waxa dhacdo ma taqaana waxa lagu arkayaa waxaad ku soo biirtay مثلا saxaafada 2016 qofba marka wuxuu ku arkayaa 3 sano ka bacdi wuxuu haysanayaa uu ku sii darsanayaa balaas 10 sano oo ka horeeyay ama 20 sano oo ka horeeyay ama 30 sano oo ka horeeyay inaad jirtay markaas waxa lagu leeyahay walaalay waad sii da'yaraatay waad yaraatay maxaad cuntaayad isku da'yaraysay markaasa waxaan ku idhaahdaa camudan cunay ciid cuna kowde marka dadkii oo ka aqoonin baa waxa iska ka oranayaan walaalow laga yaabaa qofka ku soo biiray inuu aad isaga yaraa marka de qoloftiisuna iska weyn ma haduu tuliso laba casho isaga le in maalid inaan baa igu soo diray one day Facebook iga yaqaana maalin buu igu soo diray maanta bay la soo hadlay wuxuu yiri taqana maanta waa soo go'ay Allah walaal Facebook hadda arkay gabadha miyaa igla leedada ha walaal aniga ku yiri hay war soo dhow ku maanta ba sawir baa soo dhigay wuxuu yiri igla nay walaalay waa yarta noo sheegtid maxaa walaalay cuntaa markaasaan ku yiri maxaa walaal markaas walaal maxaa cuntaa walaal maxaa soodiga walaal si yaranay walaal maalin maanta kadib soo si yaranaysaa waxaa soo ka sii daran qof maalin inaan maalin baa islaan yar oo baa meel kaga hortimi waxay tiri alla eedo xalaba idin daawanayay sax kuure ha eedo hay waa ma sha Allah markaas xigtay adiga sagal baa daawanayo islaamtaasi adigu waa ilaa 65 sano hadaa been sheegay wallahi waxay ku taqaanaa عاونوا في إساس كجا إجي يعني نركي الله وحيتري بسم الله الرحمن الرحيم ما ينداون شري ما تقنا بيتري عهورني ما بيدي دتك بيتري مركزان كل هاي دوار مسيتري دتك بيتري فانكي كتير إيه دورتم حيعملون المجبوباني عهورني ما بيدي سجل بيتري ها سجل يونيفرسال قرب سجل يونيفرسال با سجل سنة كشغل 6 سنوات سجل سنة طبعا إذا عهورنا وتصبرتي واحد يونيفرسال waxaan daawin jiray sagal waxaan daawanayay universal bay tiri maxay 30 sano saani waa ruwaar ma 40 sano xabay ka shaqeysay marka dadka waxaan ka yaabay qof aan ku qoon ba wuxuu ku leeyahay oo maanta ku bartay sagalay wala ma sirta loo sheegtay maxaad cuntaa wala maxaad cuntay hadaba waxa jirta kulli qof kasta daada uu dhashay iyo xilliga uu jiro waxba la ku mashquuli mayno qof walba wajigiisa ka muuqataa been leen eeglanay laakiin hal tala ayaan jeclay inaan soo jeediyo dadkaasi aadka u jecel inay aad u daayiraadaan ama waqtigoodu ma garanaysaayay kolba 10 sanadood ha marka waxa jirta hal sir baa jirta halkaas sir waxa weeyaan hadii aad farxad ku noolaato number 1 oo free stress aad noqoto haddii aanad bulshada ilaahay adduunkaas uu ka keeno uu ku yiri maxaan idhaahdaa dadka aan cibaadada iyo hawlahaas adduunyada kala ku sii mashquulna hawlahaas haddii aanad waa qodobka ugu muhiimsan haddii aanad qof bil aadana aanad xaman caayin ku mashquulin marka taa laga yimaado wax kale oo ka sii wada muhiimsan baa jira waxa jira shayga cafiska la yiraahdo habeenkii markaad sii seexanayso ama qofku sii seexanayo hadii uu ummad nabi maxamed oo dhan cafis beega yihiin uu yiraahdo uu farxad ku seexdo uu farxad ku soo tooso oo qof uurka waxba ugu hayn oo qof xaasidin oo qof ka daba shaqeyn iglanay noloshiisu way hagaagaysaa weligii yaalihii kii 70 jirka noqonayay ama ahaabo wuxuu ku soo noqonayaa 20 jir
marka halkaas sir baan jeclay bal inaan dadweynaha aan uga faa'iideeyo waxaan kale u sheegay hadda inta aan leenahay imkay sharci kale iyo riwaayad kale ka soo saaray annagu hadda ma aha inaan anaga da ka hadlayno ma aha inaan anaga leenahay da iyo waxaas ka sheekeyno laakiin dadka waxaan faniga waxyaabaha aan la kulanaa waxay tahay qofkiiba wuxuu ku leeyahay walaal maanta waxaan intay wala waa sii yaraanaysaa anaga marka waxa weey ciladayadu waxay tahay anaga dadka ma xamanno teeda labada hawlahayaga iskaga mashquulsanahay page-ka aanu iyo Facebook-yada iyaga markaan imika wax soo dhigno imika video-gan xataa waxaad arkaysaa intaas kun oo cay iyo ceeb aan lahayn dhakadana laga saarayo waxaasoo dhan waa u dul qaadanaa hadalka ma keenino dadku waa dadkayagii kiina caaya iyo kiina amaana iyo kii noo qosla iyo kii noo farxa iyo kii intaba anaga mar walba waxay nin durbaan turay ilaaq dalbay intaba raalli waxaan ka nahay qofkii aan markaas anaga kiina soo caaya iyo kiina amaani intaba anaga cafis bay naga yihiin walaalaha iyo ugu dambeyntiina waxaan xasuusinaynaa in ay tahay biriyo sabti ay ku beegan tahay cashuura oo ah bil aad iyo aad u qiimo badan runtii waana dambi fara badan oo qofku uu leeyahay laga maydhayo oo ma garanaysaa laga saamaxay marka maalinta cashuura waxaanu jecel lahay dadka inaynu uga faa'iideyno bartan khayrkana oo nadhahno soon wanaagsan soonkii salaadana ha la ogaado dadkana ha ku mashquulina xanta iyo dhibaatada iyo ceebta weliba gabdhahana inaad iska daysaan haddaad maadaamad rag tihiin oo markaad ceeb qof bilaadan uu leeyahay aad asturtaba ilaahay waxaa asturaya 17 ceebood oo aad leedahay marka sidaa daraaddeed walaaliheen waxaynu kula talinaynaa inay gabdhaha ceebtooda aanay soo bandhigin inaanay gabdhaha caayin inaanay aflagaadeynin inay ilaaliyaan marka kulli page-kaaga caawaba la wareegay ilaa waan dalbay ma sha Allah may aad u mahadsantahay sagalay waxaan kale oo aan intaas ku sii diraynaa sagalay arrin yarna waxaan rabaa oo bir dhaweyto arrin aad xooga ma garanaysaa asxaab badan aan xooga isku yare oo igla khalad bay samaysay nin cal raagleedaday keentay taana waxaan rabaa insha Allah inaan dib uga hadlo oo aynu dib halkan uga hadlo balse waxaan u sheegayaa dadka inagu xiran meel kasta inaga xiran khaasatan beedka England show ku xiran sagalna admin bay ka halkaas ka soo kala gurtaa ma kulli ilaahay malaa'igtiisa khaldamin England wixii qalad dhaca waayo wariyaashu bulshada un bay ku dhex jiraan waxay dheeriyeen ma jirto kama cilmi badna bulshada dhexdeeda un bay ka yimaadaan marka qofkani waa bilaadan qof kasta oo bilaadan adduunka korkiisa joogaana maalin buu qaldamaya hadduu qaldamana ilaahay waa qafuur raxiin oo waxaan dhahdaa u dambi dhaafaya arrintaana saacadaas baan anigu raali gelin ka bixiyay oo aan leenahay wixii qalad dhacay ugumanay tala gelin wixii qalad dhacayna raali gelin buuxdaan idinka siinana cafiyo musaamax dhamaantiin ba la fiyo inoo habeen dambe wixii dabacay sagal u sheegtay arrintaasna intii iga xumaatay cafiyo musaamax waxaan kale oo sheegaya iyagana dad aad fara badan oo page-kan desaad ogtahayba iyagana wax badan ku soo qoro oo page-kii wax badan igu soo dira iyaga laftirkooda cafi iyo musaamax bay naga yihiin qofkiina soo amaanay iyo kiina soo caab inta wasaan idin sheegnay in sagal cafi iyo musaamax dadkaygii baa tiin mar walba walaalahayaatiin khayrka inaynu isfarno arrintaasna raali gelintaas ayay say sagal nooga bixisay anoo waa ka bixinayaa maadaama intii ka xumaatay صح anigu afkaygana kama oran heesaa xalaala heesu waa xalaal qofkuna waa laakiin kaliya waa soo bandhigay intaan raali gelin ayaan ka bixinay anigu heesaa siqiirkii kabiirka cid walba ogyihiin xaaran yihiin marka intii iga xumaatay raali gelin baan ka bixinayaa shacabkaygiina sidii baan u wada shaqaynaynaa ما شعب سيدا وجعلين صبت ذا يبرامج إيجلان شو أنا إيجلان يإيدله إن شاء الله وعذرها أنا كلا دحمرة صبوتين تيدا يسود دوين تيدا أنت ما كسرك سكون جنة الله يله السلام عليكم